ogeysiis qoraal oo ka soo baxay guddida fulinta gaaryahan ayaa waxa uu qornaa sida tan. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ku shacab weynaha beesha gaaryahan ee maxamuud garaad og bolweynta habar yoonis iyo guud ahaan garxajis ujeeddo soo dhoweyn shacabka garxajis. shir teleefon oo uu yeeshay guddida fulinta gaaryahan waxa uu go'aan ku gaadhay inuu ugu baaqo shacabka beesha gaaryahan ee maxamuud garaad ee degta dhulka u dhaxeeya sool, sanaag, burco, garoowe, qardho inay soo dhoweeyaan shacabka beesha habar yoonis iyo guud ahaanba beelweynta garxajis ee isaga gudbaya deegaanadaasi ay degto beesha gaaryahan iyadoo tixgelinaysa derisnimada ka dhaxaysa beesha habar yoonis iyo gaaryahan, sidoo kalena annagoo ay noo muuqato cadaadiska iyo barakacinta maamulka jeegaanta muuse biixi iyo maxamed kaahin ay ku hayaan guud ahaan shacabka beesha garxajis. waxaannu ugu baaqaynaa shacabka gaaryahan inay soo dhoweeyaan cid kastoo soo mudata dhexmarkiinna iyo wixii kale oo lagama maarmaan u ah nolosha qofka sida caafimaadka, nabadgelinta nafta iyo maalka, islamarkaana loo furo goobaha caafimaadka. sidoo kale guddida fulinta gaaryahan wuxuu ugu baaqayaa guud ahaan shacabka dhulbahate in ay soo dhoweeyaan shacabka beesha habar yoonis ee garxajis oo culays badan ka haysato maamulka jeegaanta muuse biixi oo horena dhibaatooyinkan oo kale ku hayay deegaanada sool, sanaag iyo cayn. qoraalka ogeysiiska waxaa ku saxeexan guddida fulinta gaaryahan.